بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منهما. فصل كاس أي نعاو قرينا هدي له يرهدو وقت قلنا آدم النوه هيا ومعلومه ويريهين وحن نودي منه وفر بديهين waxaan isku dayaynaa insha Allah ta'ala inaan wixii aan boobsiin karno boobsiino walow hadal fara badan uu ku jiro oo aan laftiisa laga inda dadbi karin wuxuu fasal yahay macnaha uu kulansanayo xadiidkii mashhuurka ahaa hada jibriil ataakum yuallimukum diinakum xadiidkaas macnaha uu keenayo iyo in maxaa la yiraahdo shayga diinka la yiraahdo uu qaybsamo saddexaas martabadoodna ay kala yihiin buu yiraahdo al-islaam wal-iimaan wal-ihsaan iyo cadeyn la cadeeyo arkaanta qayb walba oo kamid ah diinka waxa ay tahay hadii la yiraahdo intaas aynu gali doonaa marka wuxuu kasii waday nadmigiisa halkii wuxuu yiri i'lam bi anna ad-diin qawlun wa 'amal fahfadhhu wafham ma 'alayhi idhtamal kafaka ma qad qalahu ar-rasul إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب 3 فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان ولكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبني على 5 فحقق ودر ما قد أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم وحن مرينا يا كتابات مركي هلك على مرها يوا اسكو ما عندنا isku aadana la'aantaas waxay daba socon doonto waxaan marnaa caawo dhan marka anigu waxaan ka akhrisan doonaa ka sharax ah idinku marka Allah yaciinakum si unba wax noqdeeno adigu waxa isdaba maray maxaa la yiraahdaa ii sheeg laba sadar ba isdaba maray arkaanta islaamka iyo iimaanka iyo ihsaanka ama maratibu diin waxa la yiraahdo hadda qadaniga xitaa fiican insha Allah ama maratibu diin waxa la yiraahdo baynu caawa meesha tan ka galaynaa wana meesha ay ka taagan tahay dooda ugu adag ee u dhaxeeyso ahlu sunna wal jamaa iyo al firaq ad-dalla waxana uu leeyahay i'lam bi anna ad-diin qawlun wa 'amal waxa uu gaataa biiri diinku inuu yahay qowl iyo 'amal oo wuxuu yiri fahfadhu hifdhi oo wafham wa inaad fahamtaa ما شيء عليه دشي سدشتمل ودين كاسو كلن صدق يعني هو محي الرماه او كلن سنه هينا وان المحل هذا ايش هذا حفدا وحير مركه وقول وعمل قولك وقولك لغا دهي عربك عملك وعملك لفتيس قلبك يا عملك عربك يا عملك جوارحك ساس درادت باهل السنه والجماعه marka ay kulminayaan bay umuurta diinka waxay ku kulmiyaan 4 qaybood qaybta koowaad waa maxay yaani qawlul qalbi yaani qowlku ku dhawaaqayo qalbiga oo diinka in la rumeeyo ama iimaankii la yimaado iyo u dirishanayo walladii jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaquuna lahum ma yashaa'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin qowlkaas waa maxay qowlul qalbiga weeyo qofka tasdiiq inuu kala yimaado qalbiga ومحل يرهذا ورميه الله سبحانه وتعالى محاكم إذا حديثك النبي صلى الله عليه وسلم عليه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وحير يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيره يعني وحال قصو صار يا النار تقفك لا إله إلا الله ويريه وقلبك سيكون جرته وحقون لك حبت محل يرهذا إيشك مرأة وإيمان وكجره أحاديث قاركود waxay tilmaamahay in laga soo saari doono mithqala dharra min iimaan qofkii qalbigiisa uu ku jiro saas darteed waxa weeye shayga la yiraahdo diinka qaadashadiisa waxa ugu horeeyo waa qofku inuu qalbiga ka rumeeyo taas waa midda qodobka labaad waa qowlul lisaani wa huwa an-nutq bi shahadatayn
يعني قولكي عربك اللوغة دواقي ووامحي قفك إنه شهادتينكي كل دواق وإلهي سبحانه وتعالى أمر وحكم بحينها هي وامحي قولوا آمنا وحاتنا هذا آمنا وحوي إيش وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا مركي آيات كاللغو آخريو وحي لها ينددك مؤمنين تاها وحي نرميني إنه إلهي سبحانه وتعالى حق سوكين ساس درتت قفك قلبي أنكر رميسانها يقلبي إيمان بأي قبوحا أيضا فعل الجوارح يبحان كلها قول اللسان وصل إيمان أرنت أيضا صح من نقنيسه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وحاتر هذا وحن رميي مركز دهيتان كاس وحن كو إيمانية كريه يعني طريقة اللي هذا النطق أرنت سدحت وامحي عمل القلب إن قفك وكلي ما ذا رمينتي كسكو عملك قلبك وكلها يعني واحد أفكر اللغة الواقعية تصديقا يش هو محي إخلاصك يا محبتي يا انقيادك يا إقبالك يا هالمجرى أنت صورنا أعمال القلب ويو إنه كسر شاكيني هبينك لصورنا في مركي إنه كشاكيني إن الشيء اللي يرهده شروط إلا لا إله إلا الله ويتضبطها إن قفك محبة لجهله انقياد لجهله قبول لجهله وهالمجرى إن هاسبا وحوي إيشك لديه كطلب كأفراد وحو نقريا ويسجن محل هذا إيشك لما مرمان كا عمل اللسان والجوارح عملك يعربك iyo maxaa la yiraahdaa ishaq jawaarixdu ay la iimaanayeen oo amalka carabka iyo jawaarixdu ay la iimaanayeen muxuu noqonayaa amalka carabku waa waxa aan isaga la aantis aan la iimaan karin midalan quraan ilaahi baa la akhrinaya waa la tasbiixsanaya adkaar baa la iimaanaya tahliil baa la iimaanaya yani tahmiid baa la iimaanaya waxyaabihi awraadi ku soo arortay salaada gudaheeda la iimaanaya waxa soo dhan waa a'maalul lisaan way qofku inuu carabka kala yimaado ayaa laga maarmaana a'maalul jawaarixna waa waxyaabaha aysan laga maarmaanka qofka jirkiisa inuu kala yimaado oo la'aantood aan la heli karin oo mesela in salaadii loo istaago masaajidka lagu soo tukado in la xajiyo in la jihaado acmaasha noocaas oo dhan waxay noqonaysaa waa maxay a'maalul jawaarih oo dhameystiraysa iimaankii qalbiga ha dhameystiraysa una marxaati kacayso oo noqonaysa waa maxay shayga laga maarmaanka ahaa ee muujinayay qofka qalbigiisa inuu iimaan ku jiro dhinaca kale marka la fiiriyo la cakiso kufrigu wuxuu ku yimaadaa un kaliya afar nooc un buu ku yimaadaa nooca koowaad waa maxay kufru jahl wa takdiib inuu qofku la yimaado jaahilnimo oo jaahil ka yahay xaqi isla mar ahaantaasna uu beenina ku darsado oo isaas iyada ku beeniyo oo ka isaga ah waxa weeye isha kufriga ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maxaa la yiraahdaa gaalada uu ku canaantay ama ku dhaleeceeyay oo uu yiri bal kadabu bima lam yuhitu bi'ilmi waxay beeniyeen waxaysan aqoon iyo ogaal toona aysan u lahayn xaqnimadiisa iyo xaq darradiisa أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ورما آياتك يجبت بين السنة إذن كو علمي يوغانشو تونا أنا كوكوبين وأنا محالي هذا علمي هذا نفهمين ميت بين السنة قيب تسوى قيبكم إذا كفري الموضوع محي كفري الجحود كاللي هذا وقفكو ووحي سوى قرنا يهدنا ويسكد قتلو سيد إله سبحانه وتعالى رفع وقصوا ذوين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كفري قصد حقوح النقرة هي كفر عناد واستكبار كفري ومحي قفك وعناد iyo maxaan ku dhahaa madax adayg iyo diido iyo isla weynin aawadi uu maxaa la yiraahdaa isha u diido bal la yiraahdaa ya rabbi wati ulaha falamma jaa'ahum ma arafu bih kafaru bih markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka lacnaday falkoodaas iyaga ah inay ka ratibay lacnad oo yiri falacnatullahi ala adh-dhalimin yani waa maxal kaafiriin yani waa maxay ilaahay lacnadiisa ahata kuwa gaalada markuu u yimid xaq ay garanayaan inuu xaq yahay bay ku gaarobeen waliba iyadoo laga qisoonayo yahuudi baa sidaas iyada lagu yiri waayo nabiga sifaadkiisa sallallahu wasallam alayhi kitaabkooda ay ku haysteen in waliba xilligu yahay ay haysteen wama dalika markii uu soo baxay way inkira kufriga naru casrka waxa la yiraahdaa yani kufru inaadin wa istikbar bal yiraahdaa oo maxaa keenaya isla weyninkaas waxa keenayo ka soo jeeda inay ku fikirayeen hadiiba nabi uu soo baxayo sidii anbiyadii oo reer bani Israa'iil ay u ahaayeen inuu karoona reer bani Israa'iil noqon doono marka maadaama uu noqon waayo carab uu noqday ba iskala weynin iyo maxaan ku dhahaa kibir ay ka kibrayaan in nabi carab ka soo jeeda ay rumeeyaan ba ay ku diideen xaq iyagu waliba garanayo inuu xaq yahay alladina aataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum bi ilahi subhanahu wa ta'ala yani kuwan kitaabku siinay xaq waxay u garanayaan iyo diinka yani say ilmahoodu u yaqaanaan milmaha ka lumayo waa maya saas si lamida bay aqoon ugu leeyihiin wama dalika mar rumeynayaan wuxuu alla daba dhigay subhanahu wa ta'ala wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun yani koox iyaga kamid ah xaqi bay qarinayaan iyagoo waliba ogaanaya aqoon u leh
welidaaba waxaa dhici jirtay nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh intuu u yimaado buu dhihi jiray war miyaanay sidaa iyo sidaa iyo sidaa kitaabkiina ku qoray oo markii lisbiya dhiijiyo ay ka markhaati kici jireen oo dhihi jireen run baad sheegtay oo sidaad sheegaysid baa saxa ayib qaybta afraad waa maxay yacni kufri ku yimaado nifaaq ku yimaado munaafiqnimo kufri ku yimaado iyo gaalnimo ku timaado weeyaan taasna waa tii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku dhaleeceeyey raggii munaafiqiinta fi suurati albaqara ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني waxaa jira dad dhahayo iimaan baynu leenahay waan rumaynay mu'miniin aan ahayn ilaahay intuu ilaahay subhanahu wa ta'ala walaw shaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim Allah hadii uu doono aragga iyo baqalkaba waa tiri lahaa buu yiri waa ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba uu kara kufrigaasuna waa maxay oo iyadoo qofkii uu daahirsanayo islaamnimo haddana qalbiga aanu kaga jirin waa qayb ka mid ah khislada afraad ee kufriga saas darteed baa kufrigan waxa uu ku yimaadaa afarta qaybood sida iimaanka uu afartaas qaybood u yahay waxa weeye amalu lisani wa amalu aljawarih wa amalu alqalbi wa amalu arkan yani inaas u yahay amalu lisan iyo amalu alqalb iyo tasdiiqu alqalb iyo waxa weeye sheeg amal aljawarih afarta u iimaanayo baa kufrigan wuxuu iimaanayaa afartaas oo midna uu takdiib yahay midna cinaad iyo istikbaar u yahay midna uu yahay ilaahay kuma sabadiiday nifaaq u yahay ka karan uu yahay juhuud uu noqonayo